shirkadda korontada ee Badar ayaa kulan casho sharaf ah u sameysay xilalka gobolada Sanaag iyo Saraar waxaana kulankaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka Sanaag mas'uuliyiinta shirkadda marti sharaf kale waxaana munaasabadani ugu horeyntii ka hadlay muhiimadda ay daaran tahay maareeyaha shirkadda Badar Khadar Jibriil Aadan isagoo sheegay inay dhiirigelinta ciyaartoyda gobolada Sanaag iyo Saraar isla markaasna aanay taageerida iyo dhiirigelinta kala hari doonin ilaa marka ay Hargeysa u gudbaan Badar iskiin garab taagto xulka gobolka Sanaag iyo xulka gobolka Saraar oo caawa halkan idinku sameeyso casho sharaf idinku sameeyso sharaf weyn u ah qaranka Soomaaliland iyo gobolada maxay ka soo jeedaan Sanaag iyo Saraarba ciyaar wanaagii ka muujiseen gobolka Togdheer taasna yaani aad iyo aad baan idinka mahad celinayna waxaanu kale oo idin rajaynaynaa in aad u soo baxdaan maxay ciyaaraha finalka u soo baxdaan aad iyo aad baan taana ugu rajo weynahay anaguna aan si garab taagno ilaa iyo stadiumka Hargeysa barasabka Sanaag Maxamed Cabdi Falay iyo isuduwaha ciyaaraha ee gobolkaasi iyo xildhibaan kamid ah golaha deegaanka Ceerigaabo oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa shirkadda Badar ku bogaadiyay kaalinta ay ka qaadanayso dhiirigelinta dhalinyarada gaar ahaan baahda ciyaaraha waxaana ay ku dhiirigeliyeen ciyaartoyda inay muujiyaan ciyaar wanaag iyo dadaal dheeraad ah Sanaag iyo gobolka Saraar haddii ay wanaag ku soo kala baxaan annagu inta laba dhibood baan leenahay inaanu ku soo baxnaa suuragal haddii aad balisan haddaad ku soo baxdaan xagga waxaad ku dhici doontaan koox jilicsan marka inaad xoogsataan inaad koox jilicsan ku dhacdaan oo kooxda number 2 kaga soo baxda gruubka wanka ah ee boorama ku ciyaaraysa marka taa wax ku raacsanahay dhalinyarada halka ka hadlaysay reer Sanaag inaan muhiim u yahay kula garab taaganahay inaad balisaan shirkadda Badar oo kala anagu khadar aan si gaar ah saaxiib u nahay waa shirkad ruuxantii dalka ama gobolada bariba aan ilaahay aad lafdaba uga arkiina haydii barakeeyo oo khayr haysiyo aad baan idinku mahad celinayaa labadii goorba waan inagu ciyaarnay idinka barba idin hadhay markaana insha Allah guul baan rajeynayaa iyo badin u rajeynayaa guusha insha Allah ugu dambeyn ka warweysantiina in faylalka labadeenu soo bixi doono gabagabadina waxaana ugu dambeyntii halkaasi hadallo badnaa dhiirigelin iyo bogaadin u soo jeediyay abwaan hore walwal tababarayaasha xurarka Saraar iyo Sanaag iyo qaar kamid ah guddiga ku hawlanaa ciyaaraha gobolka Togdheer ka socda waa Khadar Cabdirasaaq Salebaan Khadar Hanad shabakada caalamiga ee Hadwanaag News magaalada Burco.